yiraahdo dhawaan markii anagu siyaasiyiin baan nahay xog hoosaan haynaa moogtaa markii madaxweynaha Puntland Siciid Deni iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ay garowga ku kulmeen labadii qodob ee ugu waaweynaa ay isla soo qaadeen qodobka koowaad wuxuu ahaa wax la yiraahdo in doorashada dawladda federaalka la carqaladeeyo see loo carqaladeynayaa in doorashadaas dib loo dhigo la jiitamo la diido wax la in doorashada la qabto iyadoo ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay in la yiraahdo doorashadii waa dhaqaaqi weyday waa socon weyday dhaqaale waa loo waayay abnigeedii wax la lama sugi karo hal magaalo doorashada lagu sabab adeer cadeyn waa haynaa hadii loo baahdana waa keenaynaa waxaan ka hadlayaa wax xaqiiqo weey waa wax dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed ay ka dhirigsan yihiin oo Siciid Deni uu san baqarsanba oo Axmed Madoobe uu san qarsan ujeedkuna waxa weeye in la yiraahdo boosaaso doorasho laguma qaban kare ilaa qabaa'ilkii baa diiday san horeyba kugu sheegay dadkuna ma ogola in kuraas beeleed weey in la boobo dadku ma ogola maadaama dadku aysan ogolayn in boosaaso fidma laga kiciyo oo fowda laga kiciyo oo la yiraahdo magaaladii boosaaso dhib baa ka taagan oo ma maamuli karno oo amniga doorashada ma ballan qaadi karne kuraasta garow ha loo soo wareejiyo kuwa garbahaar yaalayna ha loo wareejiyo Kismaayo ujeedka laga leeyahay oo dhan waa inta marka laga yimaado in uu doonayo wax la yiraahdo ciidamadaas muhiimka u ah dawladda maadaama uu wax la yiraahdo aan ognahay hadeera ugu dambeysay waxa la yiri beenlow nin dheer iyo nin dhintay buu markhaati gashadaaba Soomaaliya ku maamulada hadeer doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday meesha la yiraahdo Qardho ee ahayd kamid ahayd doorashooyinkii golaha deegaanka ee tijaabada ahaa ee Puntland laga bilaabay madaxweynaha Puntland wuxuu isku dayay inuu boobo wuxuu la xiriiray ciidamadii biliiska ahaa ee meesha joogay buu la xiriiray oo uu damcay waxa la yiraahdo in wax la isdaba mariyo oo doorashadii loo boobo si xisbigiisa uu u soo baxo taas ciidamadii booliiska waa ka diiday xaqiiq weeye been ma waxaan ku sheegaya markii laga diidayna muxuu sameeyay inuu taliyihii booliiska oo ahaa nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo amniga Puntland wax badan ku soo kordhiyay inuu xilki ka qaado waa xaqiiq weeye waxa ku sheegaya Axmed aad ma santahay halka waxa ku darsado inay taas xaqiiq tahay waxa kugu daliila markii looga adkaaday meesha la yiraahdo Qardho waxa la yiraahdo iyo ufayn oo xisbiyadii mucaaradka ahaa ay boqolkiiba waxa la yiraahdo 60 wax ka badan ay heleen ilaa ay hadda Siciid Cabdullaahi Deni waxa laga kiri laayahay war maxkamadda dastuuriga ama magacaw ama maxkamadda sare ee Puntland u ogolow inay ansixiso doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday deegaanada Puntland muddo kooban buu dastuurka Puntland qorayaa marka doorashadaasi dhacdo fiiri marka doorashada golaha deegaanka ay dhacdo in maxkamaddu ay ansixiso si shaqadii loo socodsi ilaa ay hadda madaxweynaha waa laga kari laayaa in maxkamadda loo gudbiyo muddadii 30 bari ahayd ee dastuurka ku qornaydna maanta ugu dambaysa 25 bishii hore ahayd maantana waa 25 Axmed aad baad u mahadsantahay ciidamada ugu muhiimsan anoo ciidamada kale ee Puntland wax la yiraahdo doorkooda inkiraynin ciidamada ugu muhiimsan ee dawladda Puntland ay ku tashato ee dadka gobolka bari degan ay ku tashadaan ee dadweynaha magaalada Boosaaso ay ku tashadaan ama hal noqoto argagixis la dirin ama hal noqoto waxa la yiraahdo si guud inay amniga u sugaan waxay ahayd waxay yihiin ciidamada la yiraahdo BSF Puntland Security Forces ciidamadii noocaas ah oo ahmiyadda noocaas ah lahaa ayaa maanta waxaad u jeedaa in talaabo sharci darro ah uu doonayo madaxweynaha Puntland in uu waxa la yiraahdo maamulkoodii uu ku bedelo ciidankan waa hay'ad way ka duwan yihiin ciidamada kale ee Puntland waxay leeyihiin system gaar ah oo ka duwan waxa ogtahay in ay waxa la yiraahdo dawlado kamid ah dawladaha ee Soomaaliya taageera ay waxa la yiraahdo inaga taageera marka arintaas waa arin siyaasadeed ujeedka laga leeyahay hadaad weydiisid waa meesheeda waa ka jawaabaya laakiin muhiimadu Siciid Cabdullaahi Deni inuu ciidamada u jeedin iyo inuu wax la yiraahdo uu magaaladii Boosaaso sida deegaanada kale ee Puntland ay faraha uga baxeen oo Puntland ay wax la yiraahdo garowga qaarkeed ugu soo ururtay inay uu doonayo inay faraha ka baxaan Axmed aad baad u mahadsantahay xiisadan iyo sidoo kale waxa Boosaaso ka taagan maxaa xilligan ku soo beegbaad si leedahay in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni xilka qaadis uu ku sameeyay taliyaha ciidamada BSF horta
madaxweynuhu awooddaas ma leh xaqna uma leh xilkana kama qaadi karo waa xaqiiq waay haddaad leedahay tallaabadan sharci darrada ah ee madaxweyne siciid cabdilaahi deni uu qaaday muxuu uga jeedaa waa kaaga jawaabaya midaan hadda ku dhahay maxaa xilligan kusoo beegay inuu xil qaadista ku sameeyey ka jawaab waxa ku soo beegay waxaan ognahay dalku wuxuu ku jiraa doorasho magaalada boosaaso oo waxa la yidhaahdo aan hadda ahmiyaddeeda ka hadlayay waxa ay ka mid tahay magaalooyinka la rabo in laga qabto doorashada dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana yaalla 16 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka siciid cabdilaahi deni wuxuu doonayaa marka koowaad inuu kuraastaas boobo sidii waxa la yidhaahdo aqalka sare uu u galay uu u boobay oo kale buu doonayaa kuraastaas inuu boobo marka maadaama dadka reer puntland ee gobolka bari degan oo qabaa'ilka faraha badan ee halkaasi degan aysan ogolayn in kuraastooda la boobo wuxuu doonayaa in waxa la yidhaahdo ciidamada uu u adeegsado inuu kuraastaas ku dhaco oo ku boobo arrintaana waxay ka ciidamada loo adeegsanaya adiga hadda dhahay ciidamadan waa ciidamo gaar ah oo hay'ad gaar ah markaasi dhisan sidee haddana ciidamadan loogu adeegsanayaa boob hay-adaas gaarka ah iyo ciidamadaas puntland ma farageliyaan inta badan siyaasadda fiiri ciidamadaasi siyaasadda ma farageliyaan marka sababta uu rabo inuu si sharci darrada maamulkooda ugu bedelo waa inuu siyaasadda dhexgeliyo oo u adeegsado siyaasadda oo dadka ku caburiyo ujeedku ka leeyahay waa intaa maxaa ka dhalan kara marka oo caqabada haddii xiisadan ay sii jirto waxaa ka dhalan kara dhibaato aad u fara badan waxaa ka dhalan kara waxa la yidhaahdo shalay markii tallaabadaas khaldan uu madaxweynuhu qaaday waxaa dhacay arrimo aad u foolxun waxaa dhacay in ciidamadii puntland ee kale waxa la yidhaahdo ee ku jiray aagaga dagaalka ama waxa la yidhaahdo ay kooxaha argixisada kala dagaalamayeen buuraleyda golis magaalada boosaaso ku teedsan ama gobolka bari ku teedsan ciidamadii puntland ee joogay ee daraawiishta ahaa inuu soo saaro madaxweynuhu oo uu go'aansado inuu xoog u adeegsado inuu bedelo waxa la yidhaahdo hoggaanka hay-addan waxa la yidhaahdo BSF inuu bedelo inuu madaxweynuhu xoog u adeegsado taa marka waxaa dhacday dee qaniya kaa fujisa waxaa dhacday in ciidamadii iyaguna waxa la yidhaahdo BSF ee ku sugnaa meelaha ka baxsan magaalada boosaaso inay iyagiina soo baxaan oo magaaladii soo galaan oo maanta ay magaalada boosaaso la circiirayso ciidan oo ciidamadii BSF ee puntland ay magaaladii soo galeen maadaama dee la doonayo si sharci darro ah oo aan dastuurka puntland ku qornayn oo dadka reer puntland aysan ogolayn uu doonayo inuu madaxweyne u bedelo inay wax la yidhaahdo ayagana ay ciidamadii soo xaroodeen maanta ciidamadii gobolka bari argagixisada ka difaacayay ay iyaga hub isu haystaan oo maanta kulligood ay magaalada boosaaso ku soo xaroodeen oo 10 kun oo askari in ka badan ay maanta magaalada boosaaso gudaheeda ku sugan yihiin oo hadda dadka qeyla dhaaminayaan oo dadkii laga yaabo caawa ilaa biri waxa la yiraahdo in magaalada dagaal ka dhaco oo dadkii reer puntland iyo ciidamadii iyo wiilashii qoryaha la isugu dhiibo oo laga yaabo halkaas qax iyo barakac iyo dhibaato inay ka dhacdo kadibna taas ay ka faa'iideystaan nimanka argixisada ah oo boosaaso ay gacanta ka baxdo taasaa ka imaan karta xilli doorasho ayuu guud ahaanba dalka uu wajahayaa maxay kula tahay aragtidaada siyaasi ka soo jeeda deegaanada puntland waa aad tahay xilligan in madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni guud ahaanba isbedelo uu ku sameeyo ama hogaanadii markaasi hayay uu ka bedelo dhammaan taliyayaasha ciidamada puntland intooda badan ujeedka ugu weyn ee uu ka leeyahay waxa weeye saciid cabdilaahi deni muddadii uu joogay puntland waxa uu ka dhigtay spare parts xaqiiq weeye waa uu furfurtay waxaan ognahay foolxumooyinkii iyo jarimooyinkii uu geystay oo ay ka mid ahayd wixii ka dhacay xarunta baarlamaanka ee la weeraray guddoomiyihii baarlamaanka inta subax la weeraray oo ciidankii dowladda puntland ee xarunta baarlamaanka waardiyeynayay la laayay meydkoodii oo 10 lagu dulcodeeyey oo guddoomiye kale lagu doortay waxaan ognahay 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka puntland oo yiri siciidani meesha uu ku wado dowladda puntland lama qabno in si sharci darro ah xilkii looga qaaday oo maanta golihii baarlamaanka ee puntland uu yahay golo fadhiid ah oo aan shaqayn oo ku milmay waxa la yiraahdo golihii xukuumadda waxaan ognahay inaan hadda ka hadlayay hay-adihii garsoorka in maxkamadii sarena aysan jirin oo uu diiday inuu waxa la yiraahdo guddoomiye maxkamadda sare uu magacaabo maxkamadii dastuuriga ahaydna uu diiday inuu magacaabo waxa marka uu rabaa
taliyayaasha ciidamaduna inay noqdaan dad isaga familkiisa ah oo amarkiisa qaata oo aan haba yaraatee ogolayn inay shuruucda Puntland ku shaqeeyaan inay booliiska ama ciidamadu ay dawladda ka amar qaataan lama diidayo laakiin sharci darro laguma taageerayo marka wuxuu rabaa wax kasta oo Puntland ka shaqeynaya oo sax ah iyo qof walba oo yiraahdo madaxweyne dastuurka Puntland sidaan ma qabo iyo annaga shaqadayadii ma aha inuu ruqseeyo madaxweynuhu midaas doonaya waxa kale oo jirta sababta ugu weyn ee Puntland waxa la isbeer baartiska looga dhiganayo oo hadda cid alla cidii xil haysay oo waxa la yiraahdo dadka isaga loyalty oo ahaa ee la shaqeynaya uu rabo inuu intuu kuraas u boobo qaybna uu aqalka sare u soo boobay qaybta kalena uu waxa la yiraahdo golaha shacabka hadda uu doonayo inuu u boobo inuu xabar la soo aado oo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa la yiraahdo uu ku fowdayo oo xil ku raadsado runtii arintaasna aad iyo aad bay waxa la yiraahdo nasiib darro